Asalaamu calaykum dhammaantiin waan salaamayaa walaalkan injineer dhaqan hadii jiro uga bartay soo jeedinta cilmiga kombiyuutarka iyo qaybaha interior-ka waxaan rabaa inaan idinla wadaago su'aal dad badan soo weydiiyeen oo ah mobilkaaga sidee password ugu xiran kartaa ama log u gashan kartaa application kasta oo kamid ah oo ku jira mobilkaaga. Tusaale haddii qofkii aad ku dhaho ii dhib lambar baan kaa wacanayaa seeba lagugu xiran kartaa lambarka kaliya qofku meel kale uusan gali karin. Haddii sidoo kale uu ku yiraahdo waxbaan ka akhrisanayaa PDF kaas akhrisanayaa aad qaybta PDF ka u geysid buugga seebuusan uga bixi karin oo apps kale u gali karin. Inta badan Soomaalidu waa taqaanaa inta telefoonka qaado lambar baan kaa wacanayaa lagu yiraahdo ama ii dhib waxaan ka fiirinayaa qofkii meel kale galaya secret-ka ahaa. Marka taas aan barayaa maanta tusaale call-ka kale hadaan ku hormarno halkan haddaad taabatid call-kii haddii sidaan aad tiri xagaas kale haddaad ku dhufatid halkan waxaan rabnaa inuu noo saaro pin saa darteed kuu soo saari mayo waa inaad soo furataa. saa u soo furatid waxaad tagaysaa setting baa ku dhufanaysaa. setting markaa ku dhufatid hoos baa u soconaysaa biometric and security meesha ku qoran tahay baa tagaysaa. marka biometric and security aad tagtid kadib hoos baa u soconaysaa waxaa ku dhufanaysaa other security setting-gaas kadib hoos baa u soconaysaa meesha ay ku qoran tahay pin window oo ugu hooseysa u jeedid meeshaas sax saaraysaa. marka sida u saxid waa iskaga laabanaysaa kadib halkaan aad tagaysaa halkaan aad ku dhufanaysaa call-kii tana taabanaysaa saa hadda u taabatid meesha icon-ka ku sawiraya haddaa xoog u qabato tuujisid halkan muxuu ku leeyahay Bindis app buu ku leeyahay. waa maxay waa kan xiro call kaliya xiraysa call-ka hadda pin tiraahid sidaan ku soo saaraya kulay labada dhanba laga bixi karaa okay baa oranaysaa. hadda saa u jeedid call-ka ku shaqeynayaa laakiin qofka wuxuu isir ka baxo bal sawiradii iyo fiidiyowadii WhatsApp-ka soo gal hadduu geeskan ka noqdo kama noqonayo hadduu dhexda taabto ka noqon maayo hadduu geeskan taabto ka noqon maayo de meel uu ka isticmaalo mal waa kan saddexdii meel wax looga noqon jiray saddexdiiba waa diidan yihiin. hadduu xataa shaxdii fahmo waxa looga laabtaa labadan gees hadduu labadan gees kaga laabto labadan gees xoog u tuujiyo oo jeedo ka laabto laakiin maxay bala kaga taalaa wuxuu la aaday xaggii log ahaa log kaliya waa garanayo kaliya waa ka furan karayo log buu geynayaa. haddii tusaale kan hadda u jeeda waa ka baxday oo uu ka baxay mar haddii logi uu galo ka fudhid leedahay log garanaya haddaan mid kale ku xirno oo ka tusaale u ahaa kale qofkii quraankaas kale u geysay dib telefoon quraan baa ka akhrisanaya buu ku yiri haye suurada duntiskayga xaggan kaga bax marka kadib quraanka akhrisanaya ma ku yiri haa baa tira quraanka akhrisanaysa kaliya soo maaha haye saasa ugu dhufatay Bindis app baa tiri okay de quraanka dhanku doon oo wadodi karaa oo meeluhu doon geyn karaa laakiin maxay balagtay ama xoolaadu wax badan baa akhrisay meelaha kale soo firfiiri ma soo firfiirin karo inta badan waa kana fiiraadu hadduu geeskan taabto hadduu tan taabto meel walba uu ku xiran yahay hadduu labada gees taabto log baa galaya. meel walbana waa isku sida PDF hadduu akhrinayo waa sida hadduu meel kale akhrinayo waa sida inta kale idinku isku daya sameeya subscribe dhaha xagga TikTok-dan hadda nagala socotaan follow-da saara waa mahadsantihiin billahi tawfiiq casharo badan baan soo wadaaye fadlan saad noo dhiirigelisaan subscribe-ta sii share gareeya mahadsantihiin.